aryaanaha kalama beriga waa heesta rabaa dhegeys inkaar qabe wiilkayo anoo qaldan baan ku dhalay dabeed waxaan galay jabhado dadkan soo dili jiriyo dhacbaan kugu soo korsho war waxaa hore loo yidhi hal booliyi nidhi xalaala ma dhasho canugan qaadka ku dhashay dhacaya isbaaradana ku korisay inuu bastoolad qaatoo dadka madaxa jabsho kadibna isqarxiyo adaa ka mas-uula warnimayo haddaad iska hadlaysaane xilli hore wuxuu yidhi allah u naxariistay abwaan shariif soomaali haddaan weynay walad khayr qaboo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wacalna tuuriyay xaaladda hadda taagan ayuu saadaaliya abwaanku gurbu buubaal lankii haamanka horda haantu iyo ku furdee waleeri arya mahmaadu saas ma hayna waxay ahayd balaaya ninkii rara haanta ugu weyn asaa kow kala degta cabdul ma waxaad ula jeedaa ninkii tiin abuurtaa tiban ma gurto war saas ma hayn heestee waxay ahayd caashaqaan risoo riday aanka reesta loode sowmadiido geelaba war ma ahayn sidaa laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon war ma ahayna waxay ahayd laylay labadii walaalaa ninkii lacag lahaa weyn waryaadan waxaan dhihi lahaa laxda shiikasaar waa waxaan laabta galahayne waa midiga lilaahiya inay guurtay libintiiye soomaalay lur baana u dhacay talaha loo laabta ebedkay wax kastaba aan maqle laxda shiikasaar waa ii dhinneed acuudu billaah war lankamayn lijeede heestiri lahay soomaalay dantaa garo areed ani waxaan idin dhihi lahaa dabeel iyo duruufaan haysaa wax la laqameel ma ka og tihiin war gudoomiyaha gobolka banaadir injineer riisow wuxuu yidhi sanadkan waa sanadkii u dambeeya maqaamka muqdisho aan raadinayni shacabka muqdisho waa inay isku duubnaadaan si maqaamka muqdisho loo helo muqdishaawi waa inay mansabkooda helaan taabidaa eeday marka gudoomiye riisow cagta hadhigo muqdisho wax looma rabeeyu warkaan ugu soo qaadqaadina warnimayo hadda ka hor waxaa dhacay dad safar ayaa burcad waddada u gashay 6 gabdhood oo la socotay dadka ayay 5 ka mida faraxumeeyeen burcadii kadib markii la sii daayay dadkii gabadhii 6aad oo badbaadaa la arkay iyadoo caraysan markaasaa la yidhi maxaa kugu dhacay ma gabdhaha la faraxumeeyaad ka xuntahay markaasay waxay tidhi maxaa aniga la iiga tegey maanaan gabdhaha ka mid ahayn maxaa faraxumada iga reebay faca wuxuu qaba waa la qabaaye hadda muqdisho gabadhi laga tegay maa lama tahay aryaada ma burcadbadeeda markab soo qabsatay xaggaysa ku soo xidheen dekadu bay dhawaa ka yiriday degdeganka daayto warnimada wiil yaroo fogaan eeg la yidhaahdo ayaa saaka su'aali weydiiyey wuxuu yidhi puntland dowladda federaalku ma dowlad derisla oo madax bannaan bay u aqoonsatay maxaa jiraan ku yidhi wuxuu yidhi waftiga loo diray wasiirka arrimaha dibadda hogaaminayey gobolladana wafuudda u baxaysa wasiirka arrimaha gudaha hogaami jiray maxaa keenay sidaasuu yidhi marka siday wax yihiin buu yidhi waa maxaa geela caloosha laga rarayaa war wiilka waxaad u sheegtaa waftigaanu wafti dowlad matalaya ma ahayna niman xaafadoodii soo booqanayay ahaayeen aryaadaha madaxweynaha cusub ee puntland wuxuu yidhi iskaashigii maamul goboleedyadu sidiisiyo u sii jira sababtoo ah in gobollada soomaalidu iskaashadaan dastuurkay ku dhigan tahay wixii khilaaf oo shakhsiyaad ka dhexeeyana shaqa ii taalla maahin war madaxweynaha cusub ee puntland maanta waxa uu shir gudoomiyey golihii wasiirada cabdiweligaas waxaana yidhaahdeen hawsha halkeeda ayay ka sii soconaysaa boowe wasiirada lama bedelaya miya warnamiya war mahaytan madawiinagaana wililan aleema saarnay lafta gareen isnaeantin isku haysama fadaasan mayle erey caasimada koonfur galbeed ee baraawaya ka degdi mayna lahkadhow ayaka saasana heestililaye dalku ii dadshay diintiyo furgaan ee waldaneeyaw dawli ambaahanaaye war sidaas ma ahayne madageen lafta gareen hadhowaaw ay yidhaahdeen isagana waa uu fahmi waaye war hadda ka hor madaxweyne xaaf yaa inta cadaada ka tegay u dhuusamareebaaday kadibna meeshuu ka tegay ayaa mid kale lagu macmalay marka lafta gareen hadduu baydhaba ka tegey ama mid kale lagu macmalaa dad jaanisgaada baa jireen war dadka hadalahayta reer koonfur galbeed ma way wahe dadkaas kasaase wallaahi aan laga yeelin oo bilaahi laga yeelin inta la soo dhodhoobayba halkanagana looga keenay buu iska tegayaa sow maa kan baan dalbanaynaa kan baan dooranaynaa dadkiraayeen urmanoo suurtagalla warnamada akhrisabaanka wax lala yaabaa la arki doonaa baa layidhi waxaa la leeyahay xaramkii muslimiintu ku cibaadaysan jirtay ayaxaa isugu tegey masaajidkii kabcada laguma tukanaa layidhi maalmahan
ayaxaa lala geli waaye marka hadda waxaa ka shaqaynayaa layidhi kooxo ayaxa buufiya ayaa loo diray baa layidhi oo ka shaqaynaya aryaadhaha aniga ayaxaasaa idhaama sababtoo ah khabcad iyo mihib barakeysneedow jooga warnimayow ayaxaas kacbada galay waa fariin la yaab leh ma la fahmi doonaa warnimayow ayaxaas laleeyahay kacbadaa lagu buufiyey waa ahlu janna sababtoo ah xaramkuu ku dhinta asagoo xajinaya war horaa loo yidhi xaaji sooma noqday xujaa soo noqoto waxaan ayax dambe xajka u aadinaa ku dhacaya wallah war ayax maahana magaalo ku taala dalka Canada waxaa buux dhaafiyey libaxbadeed guryihii goobi ganacsiina waa xiran yihiin ama ilmihii lee ka cunin magaalada libax iska soo galay gamoon mariid leh ma waayeen war maanta waxaa raadiyo kulmiyo soo booqday sheekh maxamed ibraahim kenyaawi muxaadaro cajiibana waa ku qabtay galabta jimcahana wuxuu muxaadaro ku qabanayaa hoolkii sahal haddee ciyaal siiyo dhafoor xiiran heese ay soo bandhigaada $20 ku dhiibi jirtay muxaadaradu lacag maahan iyadaana ajir leh ha ka qadin aryaadhaha igaara facebookiisa ku soo qorta muxaadirada shiiqa gabdhaha ka qaybgelaya nayg ab iyaysan soo marsanin hadday alla yaqaaniin war muxaadarada shiiqa walaalow walaalka cafi waaye muxaadarada shiiqa haddii baad ka qayb galaasa midibkii allakiin abuuri lahaaw maryo khafiifanan liseetoy xijaabkii allahna amarina qaadoy saqda dhexe ee caawa ayaan soo gebagabaynay kulankii golaha wasiirada ee aan ku dhammaystiraynay qorshaha tubaha qaranka dowladdaanna tubaha wareershay wada furanna lama arko wixii tubaha waa xiran yihiin war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi wasiir aan weydiiyey tubaha qaranka iyo halbeegyada iyo qorshayaasha ka farcamaya wax qarashu kuma baxaanuu yahay lacag la'aan waana $1900 oo qorshe aryaadhaha waxaa idin wartaa hal kutub meeqa toobiyaa ka leexata war halkii halbeegba meeqo qorshaa ka leexata maxaa idinka gelina ma idinkaa wax ku darsada arrooda aryaada waxa haddii lacag la'aan lagu fulinayo matadaa wax qarash lagu fulinaya raadinaya waxaan qarash ku bixin ma qabsoomaan waryaada meesha dhow kala wada tub iyo toobiya ma taqaaniin tuulaheeda ka soo baxdee war ma taqaanid adaana qoolnaga yaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaadhaha kalamaan beriga waa heesta rabaahe dhegeysta inkaar qabe wiilkayo anoo qaldan baan ku dhalay dabeed waxaan galay jabhado dadkan soo dili jiriyo dhacbaan kugu soo korsho war waxaa hore loo yidhi hal booliyi nidhi xalaala ma dhasho canugan qaladka ku dhashay dhacaya isbaaradana ku korisay inuu bastoolad qaatoo dadka madaxa jabsho kadibna isqarxiyo adaa ka mas-uula warnimayow haddaad iska hadlaysaane xilli hore wuxuu yidhi allaha u naxariistay abwaan shariif soomaali haddaan weynay welad khayr qaboo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wacalna tuuriyay xaaladda hadda taagan ayuu saadaaliya abwaanku gurbu buubaal lankii haamanka horda haantu iyo ku furdee wala eri arya mahmaadu saas ma hayna waxay ahayd balaaya ninkii rara haanta ugu weyn asaa kow kala degta cabdul ma waxaad ula jeedaa ninkii tiin abuurtaa tiban ma gurto war saas ma hayn heestee waxay ahayd caashaqaan risoo riday aanka reesta loode sowmadiido geelaba war ma ahayn sidaa laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon war ma ahayna waxay ahayd laylay labadii walaalaa ninkii lacag lahaa weyn waryaadana waxaan dhihi lahaa laxda shiikasaar waa waxaan laabta galahayne waa midiga lilaahiya inay guurtay libintiiye soomaalay lur baana u dhacay talaha loo laabta ebedkay wax kastaba aan maqle laxda shiikasaar waa ii dhinneed acuudu bilaahi war lankamayn lijeede heestili lahaay yaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaadhaha kalamaan beriga waa heesta rabaahe dhegeysta inkaar qabe wiilkayo
anoo qaldan baan ku dhalay dabeed waxaan galay jabhado dadkan soo dili jiriyo dhacbaan kugu soo korsho war waxaa hore loo yidhi hal booliyi nidhi xalaala ma dhasho canugan qaadka ku dhashay dhaca iyo isbaaradana ku korisay inuu bastoolad qaatoo dadka madaxa jabsho kadibna isqarxiyo adaa ka mas-uula warnimayo haddaad iska hadlaysaane xilli hore wuxuu yidhi allaha u naxariistay abwaan shariif soomaali haddaan weynay walad khayr qaboo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wacalna tuuriyay xaaladda hadda taagan ayuu saadaaliya abwaanku gurbu buubaal lankii haamanka horda haantu iyo ku furdee waleeri arya mahmaadu saas ma hayna waxay ahayd balaaya ninkii rara haanta ugu weyn asaa kow kala degta cabdul ma waxaad ula jeedaa ninkii tiin abuurtaa tiban ma gurto war saas ma hayna heestee waxay ahayd caashaqaan risoo riday aanka reesta loode sowmadiido geelaba war ma ahayn sidaa laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon war ma ahayna waxay ahayd laylay labadii walaalaa ninkii lacag lahaa weyn waryaalana waxaan dhihi lahaa laxda shiikasaar waa waxaan laabta galahayne waa midiga lilaahiya inay guurtay libintiiye soomaalay lur baana u dhacay talaha loo laabta ebedkay wax kastaba aan maqle laxda shiikasaar waa ii dhinne acuudu bilaahi war lankamayn lijeede heestili lahay